waxaan ugu talagalay maanta shir jaraa'id oo kooban inaan qabanno danta iyo ujeedada aan ka leenahay iyo meesha hadafkeenu cabirayo waxa weeye bacdama xilli adagna lagu jiro marxalada badan oo dalku soo maray iyo ummadda Soomaaliyeed inaan wax yar ka xusno wixii aan muddadan soo wadnay burburkii dawladdii dhexe ee Soomaaliyeed 1991 kadib iyo marxaladii aan soo marnay inaan si kooban wax uga taataabano iyo marxaladda aan maanta marayno iyo halka aan taaganahay inaan wax yar ka taataabano haddii Ilaahay yiraahdo sidaynu wada ognahay iyadoo walaalayaal yahay oo la isjecel yahay baa waxa loogu wareejiyay xilka si wanaagsan oo kalgacayl leh oo lagu garab istaagay xilka iyo waajibaadka hor yaalla iyo sidoo u gudan lahaa oo dadka Soomaaliyeed iyo madaxweynihii xilka ka degay kuwa ka horeeyay ay u ballan qaadeen inay ula shaqeynayaan dabcan waana la shaqeeyay si fiican bayna hawshaas ayaduna ay u soo socotay waxaan xusuusanahay doorashada natiijadeedii markii lagu dhawaaqay saqa dhexe oo habeenimo waan xusuusanahay waynu wada joognay xamar baa laga yaabaa anu waan joogay xilli fiidaha lagu dhawaaqay waxaa bilowday damaashaad baa bilowday iyo farxad iyo dabaaldegyo yaa bilowday looma kala harin shacab iyo dawlad looma kala harin waxaan xusuusanahay xataa ciidamadu xeryaha ay ka soo baxeen rasaas bay ridahayeen iyaga iyo shacbigu way wada shaqeynayeen shaqaalaha dawladdu banaanka u soo baxay ceelasha biyaha iyo ilaa iyo controlka isha balcad inta ka dhaxle wado walba way xirnayd rasaasta dhacaysay dabaaldega iyo bolleerkooda wada xusuusanayay wax u dhacayeen okay inta kadib waxaan rabaa anoo soo koobaya iyo koritaankii noocaas ah waxa iyadana barbar socday taas waxa barbar socday dhismaha dawladda iyo hay'adaha kala duwan sida dawlad goboleedyada oo ayaguna u soo dhismayay si wanaagsan iyo qaarka hore u soo dhismaaba oo wada shaqeyn fiican iyo kalsooni ay kala dhaxaysay dawladda dhexe waxa cagihiisa si fiican isugu taagay maamul goboleedyadii waxa si fiican u dhismay ciidamadii walow ay bilow ahaayeen oo ciidan qaran waqtiga la dhisayay waqti ay kugu qaadanayso diyaarintiisa iyo tababarkiisa iyo qalabayntiisa iyo يعني إن لو حنباري هدف كي ودني جها الصومالية ده عسكر وقلا ودن كيس إنه أبحي نفتيسه وقت بيقعدن مركا وحي هاد برسيجر اللي في حان الله صواب مري الله وذي بيهايد كنت عيدا وناكسن يا أساس وناكسن والله على سعنا حتى هالشيء ذا عيدا ما ذن كره لقول سهية سيد التركي دولتها كلبا هالشيء دولة ده سواء جشي أي هايد وحي أساس كوها ما أعرف عيدا ما ذن لو حريه لقول سهية habraaci istaraatiijiyadii loogu talagalay ciidanka oo lagu dhiso bayna yay wax ku socdeen wax ka badan oo hadda kadib la keenayna ma aysan jirin waxa barbar socday oo mar walba dhisitaanka dawladda iyo amniga iyo siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo bulshada oo muddo dagaalansaneed oo colaado yar yar ay jireen sidii xal looga gaari lahaa oo loo heshiisiin lahaa dib u heshiisiin baa socotay mana jirin colaado waaweyn oo ka socday waddanka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada wixii aan ka ahayn meelaha qaarkood isku dhacdayo aan waaweynayn oo salka ku haya aana qabiil iyo waxyaabo la mid ah ma jirin colaad siyaasadeed oo gobolka ka jirtay muddooyinkaas aan soo marnay oo badan ma aysan jirin marka laga soo tago hogaamiye kooxeedyada oo marmar wax isku qabsan jiray ama mar ka hor iman jiray qaarkood dawladaha la soo dhiso kadibna xal baa loo wada heli jiray waana tii markii dambe xalka loo wada helay lagu soo dhisay dawladdii dambe okay anoo soo koobaya intaas kadib waxaan rabnaa inaan u soo gudubno maxaa dhacay marka halkaas waxay noo marayeen koritaankii fiicnaa iyo saadaashii fiicnayd iyo diiladii shacbiga Soomaaliyeed ee ahayd in sanad walba iyo xukuumaddii timaada ay wax ku sii kordhin doonto meeqaamka maanta la joogo iyo dawladnimada iyo adkeynta dhinacyada oo dhan yaa rabnaa inaan ayadana wax ka taabano xagee ku dambeysay riyadii shacbiga Soomaaliyeed xagee ku dambeysay xagee ku dambeeyay hankii ummadda Soomaaliyeed xagee ku dambeysay saynu ognahay marka xilligaas muddo yar kadib bishii waxaan filayaa waxay ahayd bishii February bay ahayd markii xilka uu la wareegay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 8 bay ahayd muddo yar kadib isagu ballan qaadadiisa waynu garanaynaa dhinaca amniga wuxuu ballan qaaday waan garanaynaa dhinaca dhaqaalaha wuxuu ballan qaaday waan garanaynaa maxaa ka qabsoonay maxaa ka qabsoonay yaan rabnaa inaan wax yar taabano hadii Ilaahay yiraahdo waxaa bilowday isla xilliga waxaa dhacay ku takrifal awoodeed iyo ku tamasho iyo ku xadgudub ummadeed
waxaa dhacay ku tagrifal awoodeed oo si foolxun oo xaqdarra loo isticmaalay awoodii dawladda iyo ku xadgudub ummadeed baa dhacay ummadda Soomaaliyeed waxaa lagu sameeyay gaf iyo xaqdarro iyo runtii takoor badan baa dhacay haddaan wax yar ka soo qaato ma wada sheegi karno ummadda Soomaaliyeed bay u taallaa wixii dhacayna waa la wada garanayaa laakiin waa inaan isxusuusino bacdama hadda doorasho aan u soconno ummadda Soomaaliyeed daqiiqadihii ugu dambeeyay waxay taagan tahay ay ku guddoonsan lahayd wixii ay ku noolaan lahayd mustaqbalkeeda iyo aayaha ilmaheeda iyo ummadnimadeeda ay taagan tahay marka waxaan rabnaa inaan wax yar aan dul marno inagoo aanoon cidna ku xaqiraynin waxa aan ka hadlahayaana aan been ka sheegaynin haddaan been ka sheegayo ummadda Soomaaliyeed baa ka falcelin doonta waa lagu qabsan karaa wixii aan ku gafana bini aadan baan bini aadan uga fikira mana raba ilaa xad inaan ku talax tago eeday qofeed ma raba inaan ku talax tago laakiin dhacdooyinka xanuunka leh maxaad ka baratay wixii la soo maray yaan rabnaa inaan wax yar aan sameeyno si cidii dambe ee ummadda Soomaaliyeed ay xil u dhiibatay ay u lahaata taxadarkeeda una garato in la xisaabtami doono maalin oo kamida maalmaha Ilaahay kamida ummadda Soomaaliyeed ay la xisaab horteeda u iman doono u baahan doono waqti cayiman buu qofkan uu shaqo uu leeyahay xilkaas waqtigaas markuu dhamaadana wuxuu dib ugu soo noqonayaa ummadiisu dib ugu soo noqon xil inaad qabataa waxay tahay macnaheedu inaad guri fuushay dabaqa inaad caaw hotel kireysatay 8 dabaqa u sareeyaad seexatay ma halkaasaad saaraanaysaa waxaad ka soo degaysaa aroortii waad ka soo degaysaa shacbigu waa dhul waxaad u soo noqonaysaa dhulka dabaqa 8aad seex laazim waxaad u soo laabanaysaa haddaadan ku nafbixin meeshaas waxaad u soo laabanaysaa shacbigaagi haddaad ku nafbaxdana waxaa lagu soo celinayaa shacbigaagi shacbigu waa dhul waa hooyo lagama maarmo asagana loo soo noqon isaga ayaa wixii aad gashatayna aad ula iman doontaa oo abaalkeeda aad ka heli doontaa kow dhacdooyinka foosh xun ee bilowday waxaa ugu horeeyay in la dhiiban muwaadin Soomaaliyeed oo dalkiisa iyo dadkiisa aan dambi ka gelin xaqna ku lahaa ummadiisa inkasta nasiib wanaag anigu ahaa codad kama qaba wixii dhacay waa ka soo gudubnay laakiin waxaan rabnaa inay la garto inay ahayd gaf taariikhi oo la galay inay ahayd taas halka laba waxaa jirtay dhalinyaro loo qaaday Eritrea oo dhowr kuna 5,000 miya waa laga badiyaa ilaa hadda lama garanayo faylkoodii cid haysa lama garanayo waxay ku dambeeyeen lama garanayo waalidiintoodii 2 sano halka ka dhawaaqayaan hanala soo hadalsiiyay ilmaha nagibay leeyihiin hanaloo keenay leeyihiin hanala tusay leeyihiin ilaa hadda waa la leeyahay cid ka jawaabta cabashada iyo codsiga shacbiga cid ka jawaabta waa la leeyahay nasiib darro inta oo kun oo ilmood oo Soomaali oo wax la soo baray oo waalid lahaayo ehel lahaayo qaraabo lahaa ummadda Soomaaliyeed ka maqan ma aha arrin xanuun yar in laga dhaga adeegana ma aynan ahayn in laga dhaga adeega waxayna tusaysaa yani ducfiga maamul ee jira yayna tusaysaa iyo inaan dadka Soomaaliyeed u qiimeysnayn runtii xukunka dadka hadda gacanta ku hayay inaan u qiimeysnayn bayna tusaysaa taasi qodobka saddexaad la dagaalankii maamul goboleedyada oo sida aynu ognahay aan wax loo dhaafay ayna jirin wax loo dhaaf kuwa la burburiyo oo wixii la raba laga samaysto kuwa la dagaalamo oo lagu abuuro qalalaase oo wax walba lagu sameeyo yani la dagaalankii dawlad goboleedyada halkii loo baahnaa dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyadu inay yeeshaan wada shaqayn iyo iskaashi xog iyo xoolo wadaaga inay yeeshaan oo isku tiirsan waxaa dhacday kala fogaansho iyo tafraaraq iyo colaatan baa dhacay runtii arrintaas waa qayb kamida nasiib darrada okay afar dhibaatadii ka dhacday Baydhabo oo dadka qaar ka yiraahdaan waa xasuuq laakiin runtii dhibaato fool xun oo ka dhacday inay shacbiga ku dhacdaan ma aysan ahayn dhibaatadii dadka gaadhay waan uga tacsiyeynaa dhimasho iyo dhaawac runtii waxay arrin dadka Soomaaliyeed xanuujisay aad iyo aad u dhib badan ay ahayd oo laga maarmi karay sabab loo laayana aan la garanay waxaana loo adeegsaday kuwa anigaba la ii dhiibay ciidamada Itoobiya loo adeegsaday waad arkaysaan hadda sawirradii waa idin hor yaalla waa in tusi karnaa hadda oo taangiga Itoobiya ay dhex socdaan shacbigii oo shacbigu dhagax tuurayaan yani waxaa dhintay 10 iyo dhowr qof baa dhimatay 15 16 miya waxaa dhaawacantay 26 ama wax ka badan baa dhaawacantay waxaa qaxay dhibaato badan gaadhay dad shacab ah
يعني qalalaas iyo argagax baa dhacay runtii okay shan cunaqabatayntii Kismaayo xilli adag oo xaalad corona virus la tacaalahay aad iyo aad uu dadku u dhimanayo duruufaad adag oo abaarana ay taagan yihiin ayaa waxa cunaqabatayn lagu soo rogay dawlad goboleedka Jubbaland magaalada Kismaayo oo la diiday wax duulimaadu inuu halka u baxo kana yimaado waa la diiday halka waxa ka dhacday runtii dhibaato fara badan baa ka dhacday dad badan baa maartay meesha waxyeello ka soo gaadhay haday ahaayeen isbitaaladii oo daawadii ka dhamaatay wax qalabkii kaleete ee maartay adeegii ka dhamaaday marka ama ha ahaadeen dumarkii umulay ha ahaadeen ama dadka xanuunada gaarka ah ha ahaadeen ama waxyaabo badan baa runtii iyadana halka ka dhacay waa xadgudubyadii qayb kamid weeye lix weerarkii madaxweynayaashii hore iyo siyaasiyiintii dalkaba oo ayadana si ku talagal ah oo waxba loola hadhayn iyadana loogu xadgudbay weerar loogu geysay ilaa laga leynahayay ciidamadooda iyo staafkoodii aan ognahay iyagana in la laayay wax qiil aan loo haynin in la weeraro iyo in la dilo sabab aan loo garan karin waxay ahayn madaxweynayaasha ummadan soo maamulahayay iyo siyaasiyiintii iyo musharaxiintii dalkan lahaa u taagnaaba hayaan inay markale dadkooda iyo dalkooda u shaqeeyaan wax dambiyo marka ay gacanta kula jireen ma aysan jirin weerar cad oo aan laba isweydiininba waxa lagu weeraray goobihii ay deganaayeen iyo meelihii ay runtii qaarkood banaanbax nabadgelyo iyagoo calan kii dalkaasi oo border wata yaa lagu weerarahay waxyeello runtii badan waad ogtiin in halka ka dhacday weerarkii lagu qaaday shacabkii ka soo horjeesaday muddo kororsigii xaq darrada ahayd maba loo baahnay muddo kororsi in la sameeyo يعني أفر سنة قفك شقينا هي أفرتي سنة بقول درية فشل حالة دي سكوسو دمات لبا سنة وكلام كدر سنة هي يعني waxay ku tasaysaa qof ciil qaba un halkii aan rabay ma gaarin toogtu lama helin meesha aan rabay wali lama helin way noqon kartaa runtii tii kale waxay ahayd in si tala wadaaga hadii muddo korar saxasta la sameeyo dadka uu ka wada tashaday oo lagu qanacsan yahay in la yiraahdo waxaas ay noo dhiman waxaan ku gaari yani ma aysan dhicin waxay ahayd gaf iyo mushkilad dhacday oo lagu weeraray shacabigii Soomaaliyeed ee ka soo horjeesaday muddo korortigaas aan runtii barakaysnayn sideed isku daygii afgambi ee qaraska tuurnimada ahaa ee lagu qaaday ra'iisul wasaare iyadana waan la soconnaa wuxuu ahaa runtii isku day qaraska tuurnimo ah oo aan la qiimeynin maxaa ka dhalan kara xilli dalka oo dhan kacsan yahay xilli xaaladdu aad ay u cakiran tahay bulshadu dareenkeedu aad u kacsan yahay ciidamadu kala qaybsan yihiin jananadii iska soo horjeedaan jawigu cakiran yahay yani beesha caalamku ay aad maartay indhaha uga haysa waxa ka soo bixi doona arrimaha Soomaaliya in la yiraahdo waxa afgambi lagu sameeynayaa ra'iisul wasaarihii shalay lagu wareejiyay xilkii doorashada iyo amniga yaa la weerarayaa in la yiraahdo runtii waxay arrin cajiiba bay ahayd oo aad iyo aad u ahayd arrin fajicisa bay ahayd sidaa darteed waxa loo oran karaa hab uu qaraska tuurnimo ah yay ahayd iyo ismiidaamin hagaag lambar 9 ciidamada dalka oo loo isticmaalay si ka baxsan qaanuunka iyo xeerarka dalka ciidamada dalku ciidanka militariga ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka booliiska iyo ciidanka nabad sugidda iyo ciidanka asluubta mid walba shaqo u gaar oo loo igmaday buu leeyahay waxayna ku cadahay xeerarka dalka iyo waxay ku cadahay shuruucda ku cadahay intii laga leexday dhamaan ya waxa loo isticmaalay dana shakhsiya iyo siyaasad ya loo isticmaalay ilaa laga gaarsiinayay si aan hadda aynaan garanayn ciidankeenu sidoo ama akhlaaqiyadkiisa ama disciplinkiisa loo dhiso doona aan la garan karin si uu isu aamini doona aan la garanaynin shalay wuu dagaalamay saraakiishiba xabad isku riday laba saf baa la kala noqday beelaa la kala noqday kooxa iyo saaxiib la laashaa jiray yani waxay raad ku reebi doontaa jiritaankeena ciidan iyo mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed iyo dawladnimadeeda iyo runtii arrimahaas oo raad ku reebi karaan waa damiir iyo la xajacla daro in ciidanka ummadda Soomaaliyeed ama ciidan qaran in loo isticmaalo dana gaara oo lagu abaabulo oo darajooyin lagu siiyo oo dhaqaale lagu siiyo oo lagu diyaar waa runtii waa arrin dhibaato oo ka turjumaysa la xajacla daro ka imanaysa mas'uuliyadda meesha markaa ka jirta hagaag inaga oo soo xigeynayna
hanti dhowraha guud xisaab xidhkii maalin dhoweyta uu ka hadlayay uu soo gudbiyey waxaa la lunsaday lacag aad u tiro badan oo gaaraysa $100 milyan oo dollar taas waxay ahayd riboodkii hanti dhowraha guud ee maalin dhow uu soo saaray bay ahayd ma aha inaan anigu qayb ka ahay dhaqaalaha iyo dabagalkiisa laakiin waxaan soo xiganaynaa hanti dhowraha guud ee qaranka riboodkiisa maalinka ugu dambeysay oo soo saaray oo malayn 2 week ka hor inay 11 kicinta beelaha sida Jubbaland Puntland Galmudug iyo meelo kaleba si xukuumadaha loola dagaalamo waxa la abaabulay shacabigii waxa la geeyay dad ay runtii dawladdu marka ay ka rabtay inay maartay ku fuliso qorshe qalalaasa meesha intay ka dhacdo ay cid ay rabtaa iyada ugu soo saarto habka ay u martay wuxuu noqday in dadkii qabaa'il loo abaabulo heer hebel oo la yiraahdo heer hebel dad ha laga keeno hal abaabulo ha loo diro meeshii yaani ha abuura qalalaaso qabiilkiisa dhinaca hawla go marka dambana raad ku yeelatay runtii wada shaqayntii bulshada iyo isdhexgalka iyo kalgacaylkii laftigiisa dhaawacday inkastoo inta badan lala tacaalay weli qaarkood ay hadda weli dhibaatadii ay muuqato sida hadda meelaha qaarkood oo kale oo aad yar ugu silaxan 12 afduubkii Sheekh Mukhtaar Roobow Abu Masuur wuxuu ahaa muwaadin Soomaaliyeed oo dawladda heshiis la galay ku yimid heshiis muddo kadibna loo ogolaaday inuu isu sharaxi karo xaq uu leeyahay inuu waxna doorto lana doorto dawladdu way ogolaatay waqti buu shaqeynayay daqiiqadii ugu dambeeyay cod bixinta Sheekh Mukhtaar waxa la yiri ka joog arintan baa la yiri ka aqbali ma inaad sharaxdo markii hore raali baa looga ahaa shahaadadii baa la guddoonsiiyay waa lala shaqeeyay wasiirkii gaashaandhiga ayaan filayaa inay mar hawlgal wada tageen dawladda oo dhan buu la wada shaqeeyay daqiiqadii ugu dambeysay yaa la ka baxlayn ka aqbali ma inaad doorashada ka bax maya waqti noqma hadin aan hadda kaga baxee idaaya aan tartamo dadka iyo dalkayga xaq baan ugu leeyahay inaan madax u noqdo iyo inay madax ii noqdaan wax ka doortay idaaya waad ogeydeen waa la weeraray tan aan ka hadlaynay baydhabo dadka lagu laayana sababtii Mukhtaar loo qabashadiisii afduubkiisii ficilka ka dhashay bulshada ay muujisay ayaa dadkan u baabay inkastoo dadku dagaal gelin oo san xabad ridin haddana ficilkay muujiyaan buu dadku u dhintay xaqdaray ahayd muwaadin Soomaaliyeed oo dalkiisa iyo dadkiisa u sharaxan dawladdiisina u ogolaatay shahaadadiina ay guddoonsiisay mar kale waxaana inay ku dhaxad ilaa haddana aan war rasmi aan laga haynin Mukhtaar Roobow Abu Masuur aan wax xoog aan laga haynin waxay ahayd ama maxkamad la keeno ama la sii daayay ahayd laakiin uu saxaabal ilaa hadda inuu ku maqan yahay waxyaabahaas waa wax dareenkeena taabanaya oo Soomaalinimada taabanaya qof walba taabanaya inkasta oo deegaankii uu ka yimid iyo eheladiisiiba in badan oo kamid ay raadiyeen say sheegaan laga warhayo haddana Sheekh Mukhtaar ilaa hadda wuxuu ku jiraa meel aan runtii aan la ogeyn iyuu ku jiraa inahaas kuma soo koobi wixii dhacay kuma soo koobi karno runtii waxaan rabaa inaan ku daro qodob 13 dilkii Ikraan Tahliil oo masiibo qaran ah sarkaal u shaqeeya bay ahayd dawladda oo ka tirsan hay'adda sirdoonka ee NISA waa la waayay sida laga ay soo sheegtay dawladdu waa la waayay muddo kadib isla hay'adda NISA oo ka tirsanayd Ikraan Tahliil yaa waxay tiri shabaab baa dilay shabaabna way iska bariyeelaan waxayna sheegeen inaynan Ikraan dilkeeda loo kulahayn xogna ayna ka haynin Ikraan oo ina arag bay sheegeen dilka Ikraan Tahliil waa runtii waa dil fool xun oo leh xanuunkiisa leh wuxuuna noqon doonaa waxyaabaha dib uun la isu weydiin doono noqon doonaa aan soo gabagabeeyo dardaaran sidaynu ognahay waxaan taaganahay saacadihii ugu dambeeyay baynu taaganahay doorashadii la gali lahaa ee madaxweynaha dalka Soomaaliya lagu dooran lahaa baan taaganahay marka intan dhacday iyo waxaan dhacay waxa loo baahan yahay kow waxaan dhacay wax la iska ilaawi karo ma waxaan u baahannahay in lagu la xisaabtamo mas'uuliyadda cidii lahayd waxan madaxweynaha xilka ka degaya
iyo ciddii dembigan kula jirta waa in lagula xisaabtamo waxaan dhacay dalku wuxuu leeyahay madaxweynu leeyahay dal burburay maaha jabhada kama taliyaan madaxweynu leeyahay si sharciga lagu doortay lama afgembiyin muuna dalka ka cararin wixii dhacayba goobjoog buu ka ahaa wixii dhacayba mas-uuliyaddeeda asaga qaadanaya waxaa loo baahan yahay inuu asagu ama cid u soo taago oo yidhaahda dembigan ciddanaa gashay ha loo maxkamadeeyo ha lagula xisaabtamo wixii dhacayna waxaanu ah hadday dhici weydo mas-uuliyadda isaga qaadanaya sidaa darteed waxaan u baahannahay ummadda soomaaliyeed anu afkeeda kuma wada hadli karo laakiin waxaa lagama maarmaana baarlamaanka soomaaliyeed oo maanta talada shacbiga soomaaliyeed iyaga loo egmaday iyo masiirkii iyo yani ummadda aayaheeda iyaga loo egmaday in ay wax ka weydiiyaan waxaan dhacay madaxweynaha dalka in wax laga weydiiyo wuxuu isagu qaadan iyo wuxuu cid kala saaraya isagaa garanaya waa in wax laga weydiiyo laakiin intan oon wax laga weydiinin dhacday intaasoon wax laga weydiinin madaxweynaha mar kale intuu na soo hor istaago inuu yidhaahda doorta waa arrin ceeb iyo fadeexa ku ah aflagaada ku ah ummadda soomaaliyeed maskaxdeeda lagu ciyaarayo wey waxba ma garanaysaan wey ummad ma ihidin wey wixii idin gaadhay ma fahamsan idin wey waa cay iyo jaa'ifo ku dhacaysa maskaxda shacbiga soomaaliyeed iyo waxgaradkiisa xaq laynooguma lah taas waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed waa dad caqli badan waa dad cilmi badan waa dad runtii karti badan waxay dhacayna way og tahay si detaileysa loo hayaa war intaydaa waxna weydiisanin oon cod ummadda soomaaliyeed la weydiisanin wixii dhacay ha looga jawaabo waxaan ha laga jawaabo ciddii gashay ha la sheego cid lagula xisaabtamo ha yeelato mas-uuliyaddeeda ha la qaato waa in la helo cid qaadata sidaa darteed baarlamaanka waxaan isleeyahay inay ku habboon tahay inay madaxweynaha wax ka weydiiyaan waxaan dhacay iyo jariimooyinka ummadda loo geystay intan aan sheegay iyo 10 jibaarkeedna way dhaceen mudanayaasha iyo marwooyinka inagoo u hayno xurmo iyo karaamo waxaan leenahay maanta wuxuu idin hor yaallaa masiirka ummadda soomaaliyeed wuxuu hor yaallaa maanta idinka gacantiinna ayuu ku jiraa xildhibaanada la soo doortay wixii aad u doorataan ummadda soomaaliyeed maanta taariikhdaa qori doonta walaalayaal waxaan idiin soo jeedinaynaa guul iyo guul darro maanta gacmihiinna ayay shacbiga soomaaliyeed ka dhowrayaan iyo ilaahay subxaana wa tacaala inuu idin waafajiya sawaabka